هياي أصحابتي كانوا ويلكية لكن سمعتوا اللي جوا الربع أبيس جوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وهند حسن عليكم مقعدر هند دقي جنال كداوني سين وهند دقي هدي أنا كوبت بديو أو بشمه عن عرب كي من مريوها كحمانها صوته أيام تدوم عن دسناي بشمها مركو حير كتيبة ويقلل عيان الحمد لله هذا وصوفي عنادي أيام تحت تلفين كي استعمالين in 1 week تلفين كي جوا تلفين لو شقيه waxaa isticmaala wiil aan saaxiibanahay asiga ku shaqeynaa shaqada isla joognaa sidoo kaleeto maanta waa soo qaatay alxamdulilah xagga taleefankiisa inta ka qaato ayaa muuqaal idiin soo duubaya anigoo xanuunsan oo meeshaas idiin soo gelinaya asxaabi alxamdulilah hadda waa fiicanahay aadaad u mahadsantahay qofka iisoo duceeyey qofkaan iisoo duceyninba dhammaantiin waad mahadsantihiin maanta waxaa rabaa inaan ka hadlo video yar gabar walaashay oo TikTok aan ka arkay muuqaalkii waan soo degsaday maalin dhexdaas rabay inaan ka hadlo laakiin alxamdulilah wax xanuunsaday xanuun yar kadib maantay waan soo laabtay maantaan jaanis weyn u haya markay maadaama muuqaalku uu yahay muuqaal yar laakiin macnaha uu ku fadhiyo ayaa ka weyn muuqaalka aan ka hadli rabo waxay tahay horta bal soo daawo inta maaragtay aanan ka hadlin muuqaalku waa kan. هياي أصحابتي كانوا ويلكية لكن سمعتوا اللي جوا الربع أبيس جوا الربع أوكي كنت بدر حاجروا يعني لقموا وقولي له هروح لو يرنين معان لكن حلقيها لا معان قولها دانا ذا نركع جيسو وحول بروح أوصل مساء عرورت هذا درتو ذا ويا عرورت ودهب لكن سو حدريمي كرا نيكي وحدنا اوكي كبدا سو waxaan kula talinayaa reerkiina guriyina heesta waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkii soo daawateen oo maaragtay ahay muuqaal aad u qiiro leh waliba ani waxa iga oosiyay moogta qofku markuu dareemayo dareenkiina uu rabo inuu qariyo ilintuna aynan indhihiisa qof hadad aragto murugsan gudaha ka gubanayo indhaha ayaa maaragtay hadla waxaa jirta wax la yiraahdo body language qofka cuqdadaysan markii uusan afka ka hadli karin haddana indhihiisa markaad fiiriso ilintu way soo dhaafaysaa gabadhan waxay isku dayday inay ilinteeda qariso way qari weysay haddana inay waa tiraahdo way ka xishootay faruurteeda ayay qaniintay saas oo kaleeto ileen waxay dareemaysaa cayl kow waxaa rabaa ragga soomaalida inaan u sheego raggu ilaahay ka cabsada adduunyadan waa laga tagayaa waa 2 maalmood haddii gabadhii iyo cunugeedii aad kala geysaan waa xanuun aad u weyn waxaa dareemi karo hooyadii soo foolatay 9 bilood urka ku siday adiguba ma jeclid adigay hooyada in la kala waday maxaad u kala wadaysaa cunugii hooyadiis u naxariiso oo ku bilxata haddii aadan awoodin xitaa cunugeediisi cunugani haddii xitaa uu ka badbaado adeer wuxuusa ka badbaadinin eedo adiga haddaad cunugaadii wadato waxaad guursan doontaa mustaqbalaad u baahan tahay waxaad guursan doontaa naa kale ayadan cunug waxaa laga yaabaa inay dhibaatayso laakiin ayada markii ay isguursadaan ninka si kastay u jeceshahay waxa ka weyn jacaylkay cunugeeda u qabto midda kaleeto adigu markii aad shaqada aadaysid nin ragaha ilaahay kaa dhigay waxba kama ogid waxa guriga ka jiro way fahamtaa u malaynaya laakiin ayada 24 saac gurigay joogtaa oo waxay og tahay xaaladda cunuga uu ku sugan yahay inay ila fahamteen rajeynaya gabdhow aan idin soo laabto waxaa jira waxyaabo yar yara ee reerkiina idinka duminayo haba ugu horeysa maseerka waxaa laga yaabaa in maseerku uu yahay waxa ugu badan ee guryaha dumiya ama dumar kaleeto inay intuu ku imaadaan reerkaada kugu diraan war u sabar caruurtaada haddii aad tahay maamo hooyo ah ee caruur haysata ku sabar caruurtaada wax kasta oo aad maaragtay ugu sabri kartid ma jira nin raga oo jecel in reerkiisa laga sheekeeyo war marka koobaad reerkiisa ha ka sheekeynin oo qari haddaad maanta qadi xitaa alxamdulilah sorry waxyar waa qiiraysanahay haddii maanta aad qadid
asigoo ku dhahay waan baahoonnahay. laakiin dadka markay kuu imaadaan u sheeg inaad ladan tihiin oo waxaad ku tiraahdaa alxamdulilah. okay, haddii lagu dhaho ninkaadii xagga naagla taagnaay usug waxii jiraba cakaaro imaan. waxaa waaye haddii ninka uu qaldan yahay waad la hadli kartaa, waad dhihi kartaa saan wax ka bedel, laakiin wax aadan hubin ha ku kicin. tan kaleetan kuu sheegaya, waxaa jira gabdho inta badan isticmaala taleefanka ninkooda ama uba soo qaato inay fiiriyaan bal ninkaada yuu maanta la soo sheekaystay. ka waran haddii taleefanka anta ka qaadid aad aragtid ninkaadiyo naag la sheekaystay ama xiriir kala dhexeeyo. marka koowaad adigu dhaawacay ku tahay. tan labaad waxaa halis u tahay in adiga ninkaada aad kala tagtaan, ilaan maseerkaadaa keenaya. 3 inaad ninka islaameed halis gaarsiiso, ilaan ayaantaa waxaa jirta ninkii naag shukaansaday in la gube. 4 hadhowdii markii aad kala tagtaan adiga carruurtaadina isweysaan. carruurtaadu waa lama huraan, ama aabbay way doonaan ama hooyo way doonaan. carruurtan waxay ku qurux badan yihiin in la isla korsado, jacaylka labada dhinac ay ka arkaan. haddii adiga hooyo aad tahay oo wax wanaagsan aad barayso, dhanka kaleetana aabbuhu wuxuu baraa wax wanaagsan wiilka ama gabartaba. waa garab mar kastaba garab taagan. wiilka aabbihiisa garab taagan, hooyadiisna way garab taagantahay. wallow la dhihi karo wiilka inta badan waxaa canaanta oo 75% uu tacliinta ka bartaa waa aabbaha, sida gabadhu ay hooyada ay u barto oo kaleeto. waxaa idin leeyahay hala isku sabro reeraha. gabadhan xitaa waxay leedahay gabdhow yaanan la idinka dumin reerkiina waxyaabaha yaryarkaa u dulqaata. hadalka ay tiri waxaa ka mid ahaa nin ma macaano laakiin wixii laga helaa macaan. guri haddaan leedahay reerkaaga heeso. taasay ula jeeda carruurteeda. waxaa rajaynaya inaad isla fahmnay oo reerkiina dhaqan doontaan. teeda kaleeto waxaa rabay inaad kaga mahad celiyo maanta 20,000 oo subscribe ah. 20,000 oo subscribe ah waa 20,000 labo eber 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 eber. waa wax aad u badan. dadka haddii rabta agtooda ha ka yaraato, laakiin aniga waa wax aad u weyn. insha allah waxaa rajayn doonaa in aan 30 ku soconno. ilaahayna si nabad ah nagu gaarsiiyo. haddaad garabkayga tahay walaal, hadalkaada commentigaada wuxuu ii yahay dhiirigelin. mar kasta ood comment iga soo bixiso, hadduu xitaa cayahay, waxaan ogahay waxaad igu caysay waa jacayl. haddii aad i fiirsatay waxaan iga qaldan aad ii sheegtid, haddaad maanta aragtid ayadoo meeshanay wasakh igaga taalla, halad wasakh baa kaaga taalla, iska tirtir haddaa i tiraahdo xumaan uma arko. waxaa ku qaldana ii sheeg, waxaan ku saxanaana ii sheeg. okay, laygta qofkii saar wuxuu i tusinayaa inuu jecel yahay, asxaabtiisana oo la wadaagayo. qofka subscribe ii saara dadkoo kaleeto xitaa lamid maaha. waxaa idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.